waxaan halkan rabnaa inaan kaga jawaabno dhacdadii ka dhacday xalay buuraha Calmadow gobolka Sanaag dawladda Puntland waxa ay u sheegaysaa shacabka Puntland ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in xalay oo bisha June ahayd 2018 saqdi dhexe inay argagixisada caalamiga ah ee al-shabaab iyo maleeshiyaadka Hargeysa oo ay hogaaminayaan saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka Hargeysa saraakiishaas oo uu ka mid yahay ninka lagu magacaabo sarkaalka lagu magacaabo Maxamed Cabdulaahi Battaar kana tirsan guutada sideedaad ee maamulka Hargeysa una dhashay beesha Isaaq Habar Jeclo isla markaana degan magaalada Ceergaabo xalay ay weerar ku soo qaadeen saldhigga Balle Khadar ee Puntland halkaasna ay kala kulmeen jab xoogan dhimasho badanna ay ka soo gaadhay waxa soo gaaray ciidanka Puntland khasaare kooban si geesinimo leh sharaf leh ayayna isaga difaaceen isagana caabiyeen waxaan sidoo kale u xaqiijinaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in maamulka Hargeysa iyo argagixisada caalamiga ay isku milmeen kana midaysan yihiin waxyeelaynta iyo deganaansho la'aanta ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed marka laga reebo maamulka Hargeysa sidoo kale Puntland waxay u sheegaysaa ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka Hargeysa in duulaankaas ay hogaaminayaan maamulka Hargeysa iyo al-shabaab looga dan leeyahay oo kaliya in looga jeediyo indhaha caalamka duulaanka xasuuqa iyo caburinta ay ku hayaan shacabka gobolka Sool ee gaar ahaan magaalada Laascaanood ugu dambeyn dawladda Puntland waxay u sheegaysaa shacabka reer Puntland in dawladoodu ay ku filan tahay ka safaynta buuraha Calmadow ee gobolka Sanaag iyo Highland maleeshiyaadka Hargeysa iyo al-shabaab oo ka dhigtay dhufaysyada